العالمين صلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قلت إلهي ما هذا سبحانه وتعالى إلهي جاينا قاسية ربنا إلهي بدان تيجي إلهي قال رحمتك إنه الصوري مع محله وحنا هذه أظن هذا غيا سنة هو نكسنة ولا غي الحوين المصبيحي إن علماء لا أفريا ولا تشرو وحنا قبل لكن سيدا شيخ عبد الله أنت أين كبد البول بهاي إن علماء إنه دينتي إنه يوم كلا بحان يما ملكين قالوا markii diintii kristaanku ay fasaqantay ee shuyuukhdi kristaanku ay boodcu noqdeen oo bahashi nasakeen ay shacbigooda garteen in la kala saaro church iyo state laakiin inaga waa gaalimo in la kala saaro xukunka iyo diinta wuxuu dhan ku sinaayeen aayadu inoo akhriyay sheekh ilaa khayr sheekh Jaabiri taasawani iyo wadadii saxeed ahaybe maanta dalkeena maanu ka culimo badan yahay oo ka mutacalimo badan yahay intaanu aan jiray ma jirto waliba maanta waxay culimadu u badan tahay bariga u badan tahay hadaba maalinta ugu dhiiga badanahay way ee ugu dhawaasho badan qabyaalada badanahay malaadiintu bariga galbeed ka iman jirtay way u bandaan jirtay way ka dhiigayeen oo ka fiicnaa qodan bariga waxa malaynayaa diintii iyo qabyaaladii dad bajay bay galiyeen qaasay wali qabyaaladu xoog badnaatay waxa leeyahay maanta dhowr waxay nagu yaala gantaalada nagu xidhan waa taa barida inaga taa waa arinta ceelafweyn waxa weeye arintaasi waa arin xun foolxuma ka dhacday waa barmadu way nagu taala culimadeenu kama ahdan culimadii bariyo hore dhaqaale meel ahaan jirin moogti ducada way ka jirtay qolaan idinka culimadii inaga wada waanta dhaqaale dadka oo badan oo sadaqadana aad u bixisaan baa leeyahay yiri maga waxa weeye ina gurmadna way loo gurmadaan intaas way arinta tograq waxa weeye ee qadaa kelimadu xaq u haran wax ma hagaagiyaan waxayna qasiya waxa weeye waa reer garoway reer garowe dhibaatada Soomaali hadda taariikhda aragtaan ilaa maalinta la isku darsamay ilaa maanta dhibaatada Soomaali waa iyaga markii hadda ka soo jeedsadeen Soomaaliya ay shan madaxweyne u sameeyeen oo xabaashi ku rideen ay inaga noo soo jeedsadeen waa nimanka aragtay maanta inaga casriga la jooga talaay ya reebelay talaay ya reebelay Soomaali way isku wada fiicantahay oo tukara ku joogi meyside ilaa kismaayas qabsan doonta sidii sagaashankii culimada waa la weenaysan madaxweynaha xilliga jooga culimadu way u soo cabeynayaan habada way soo cabeynayaan that's our difference marka arintaasna waan la qabnaa sheekha waan la qabnaa madaxweynaha siyaasaddeenu waxa weeye inuu difaac baan nahay warniga jooga waa habinina laakiin hadday joogsan waaya سيفتي عمر بن الخطاب القادم إن شاء الله تعالى مركز ضمن مسجد سنين قالوا إنه تجي قالوا هذا قال واحد صار نقط كاسان نقص عنيسو وأخواني هو يسوق بأيه ما قام إن شاء الله هاي إنه الصومالي هرم دبعتهم منه كيسن تضوي له تكاسنية إسلامية إنه دركينا كبكبنيني بعدين زوج عنيني إن شاء الله هاي إنه يجنا إن شاء الله هاي إلى ميل كسيو إلهي أكو سوعليو قبيالة كسارة إن شاء الله هاي وأنا كنت لجنة أنا أنت عسين نقول ما تسين نبضة أنا وقت قريب قلنا وكنت أقارن حكومتها تو عليه عشاء وأنا عسين إلهي نجاح بلو صون كيو صلاة طبعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.